hore markay isu yimaadaan oo isguursadaan bay mar kale qaab guur ahaan u xareynayaan dacwada si ay ugu fududaato hawshoodaas diinta islaamka maxay ka qabtaa qaabka noocaas oo kale sheekhu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد marka hore waxa laga maarmaanaa inaan ogaano labada la isasiiyay ee isu doonan marxaladaas ay isu doonan yihiin ajnabi bay kala yihiin dad shaqo isku leh maaha waxay isu xalaaloobaan marka la isu meheriyo inta kale waa laba ruux oo kala ajnabi ah axkaamtaasayna ku tacaamulaya qodobka labaad islaamku ama diinta islaamku ma taqaano wax la yiraahdo saaxiibnimo nin iyo haweeney ajnabi kala dhex maraysa wadana dhalinyaro ah saaxiibaan nahay dhaqankaasi waa dhaqan gaalo boyfriend iyo girlfriend waa dhaqan gaalo dhaqan islaam ah gaalada lafteedu way og tahay inayna muslimiintu lahayn dhaqankaas cid walba way ogsoonta qodobka saddexaad wax weeyaan ma fiicna in ruuxu uu sumcadiisa iyo magaciisana ku ciyaaro ta islaamkana inuu ku ciyaaro sax ma nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam laysa lana mathalu saw tusalahun iyo mithaal hun malihim bu nabigu sallallahu alayhi wasallam marka nin muslim ah oo le naag ajnabiyan saaxiib la ah ama gabadh muslimada oo le nin ajnabi aan saaxiib la ahay waa mathalu saw waa suura foolxun mana saxsana meesha waxaa ku jira nooc lugooye ah oo gaaladu doonayso inay dadkan u fududayso xumaanta sababtu wax weeye wixii ay ku siin lahayd saaxiibnimada may isqabid ku siiso iyagoo meeshooda kala jooga inta la isu meheriyo waa xaaskaygii iyo waa reerkaygii muu ku keensado saa isugu dacwoodaan oo isugu tagaan iyagoo isqaba maxaa qasab ka dhigaya inuu sheegto inay tahay saaxiibtii xataa hadday gaaladu sidaa wax ugu fududaynayaan bimacnaa lugooyi iyo akhlaaq ka dilid baa ku jirta saas daraadeed arrintaasi ma habboona wallahu aclam جزاك الله خيرا سؤاشنا شن بقول كنت نيسقال وحا أي قبضن leedahay السلام عليكم صلاة عشاء أي حل جل دب ودعي وقف شوق قربها وي أنا جانا مسوي شيء كره هدي أن صلاة عشاء تكذا مسوي شيء كره هدي أن صلاة عشاء تكذا صلاة مغرب وحير كذب مدبا كتيرة صلاة الوقت بيلاده إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صلاة والبوقت بيلاده وقت جيدي كهرنا لما تكنكروا بإجماع العلماء النبي صلوات ربي والسلام عليه وقت يدا صلاتها الشنطة جبريل با انتو يمد بومد والبوقت جيدا أهرية يا وقت جيدا قدام بيا أيو بري أو تصي أو سي براكتس أبو أوتوشي جبريل با أوتوشي maalinkii hore wuxuu tujiyay salaad walba waqtiga ay bilaabato maalin labaad buu ku soo noqdo wuxuu tujiyay salaad walba waqtiga ay dhamaanayso markaas wuxuu ku yiri alwaqtu bayna haadayn waqtiga salaadu labadaas u dhaxeeya bilowgeed iyo dhamaadkeeda inta u dhaxeeya waqtigu wayaan buu ku yiri nabiguna sidaas uu saxaabadiisa u baray sallallahu alayhi wa alihi wasallam sidaas daraadeed salaada cishaha maqribka hadii la tukado salaada cishaha waqtigeedu wuxuu soo galaa markii uu shafaqu tago shafaqu wax weeyaan waa guduudka cawaweerta guduudka dhankii qorraxdu ay ka dhacday ka muuqda kaasi markuu baabao cishaha waqtigiisi waa bilowday awwal waqti al-cishaa saas daraadeed baana ku timid xadiidka sahih muslim iyo qeyrkii
فأقام العشاء حين غاب الشفق قدودكي مركو تغي أيو صلاة عشاء استاغي وما أقيمي حديث جبريل ان هذا الشيء ان النبي قوت وجهنا ساسو يسوون كويم ساس صلاه عشاء وقتيgeeda lagama hormarin karo wala salaad kale toona hadii uu ruuxu marka joogo meel guduudka la arkayo guduudku fiirsanaya hadii aadaanka salaadu uu ka dib dhaco waqtiga masaajida la tukanayo uu ka dib dhaco marba haduu qarsoomo guduudkaasi salaada cishaa waa la joogaa waqtiga haduu joogo meel aan guduudka la arkaynin markaasi wuxuu raacayaa wasaa'isha kale lagu garto waqtiga bilowgiisa taasuu marka kaalmaysanaya saas daraadeed salaadoon soo galin ma tukan karo allahumma inuu musaafir yahay ama ruux maalan xaaje adagi haysato oo marmar yaani ay xaaladii qabsatay oo kale inuu yahay marka maqribka iyo cishaha isla jamciyo mas'ala kale taas wallahu a'lam جزاك الله خيرا سؤاشينا شنبقل iyo lixdanaad waa iyaduna waa qof dumar ah waxay leedahay assalaamu calaykum waxaan tagay goob dadka lagu cilaajiyo oo quraanka lagu saaro sheekhi halkaas joogay waxa uu u yeertay jinni uu ku sheegay inuu muslim yahay saaxiibana yihiin si uu ugu adeegsado hawsha cilaajka arrinkaas sheekhu ma saxba yaa u sheegay inuu muslim yahay baalkii la dhihi jiray hunguri baa meel walba galay marka rag baa wuxuu ka galay inay jinka kaalmaystaan oo wax ka raadiyaan arintaasi sida raajixay xoog badan waa arin khaldan qaabkaana wax looma daaweeyo inay qaldan tahay waxa ku tusaya daahirka aayaadka quraanka iyo nabi maxamed hadiyigiisa sallallahu alayhi wasallam iyo dhaqankii salafka intu way ku tusayaan waxa kamid aayaadka ku tusaya aayada ku timid fi suurat al-jin markay jinku waramayeen jinkii muuminiinta ahaa ee nabiga rumeeyay sallallahu alayhi wasallam hadalladooda waxa kamid ahaa wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa waxa jiray rag insiga kamida bini aadamka oo magan gali jiray rag jinka kamida markaas insigii magan galiyay jinka jinkii wuxuu u kordhiyay dhiiranaan iyo dambi inuu jinkiisii galo ayadu macnahaas istilmaamaysa marka waa insi bini aadan kaalmaysanaya oo magan galaya jin magan galaya waa fasaad baa ka dhashay oo jinkii la magan galayay baa dhiiranaan iyo dunuub inuu sii galay arintii keentay warbixintaas ay bixinayaan jinkii muuminiinta ah siday mufassiriintu leeyihiin waxay ku timid carabtu jaahiliyadeedii markii ay safraan ama meel cidla ah marayaan oo gobolku u dhaco kale waxay dhihi jireen waxaan magan u ahay deegaankan jinka ku nool sayidkooda ugaaska iyo suldaanka dhulkan jinka jooga ugaaska u ah ninkaasaan magan u ahay warniyahow maanta martibaan ku ahay maganna waan ku ahay jinka kale ee adigu u talisiyo sufahadaada iga ilaasho markaasay aayadu ku imaanaysaa marka waa jin meel jooga meel degan eriyadiisii baad joogtaa markaasaad leedahay koodii weynaa warniyahow ilaali oo kuwa kale yaryarka iga ilaali muxuu kaga duwan yahay ninka jinka intuu qabsaday mid jirada ka saardhahay ama iyagu kaalmeen sidoo muxuu ahaa loo daaweyn lahaa waa nooc marka isticaana ah waxa aayaadka kamida macnahaasi diidaya qowlullaahi tabaaraka wa tacaala ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن والإنس قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إلى آخر الآية آية وعيت الماميسة ما أنت قيامة مركو إلهي صوك كل ميو إنسيك يتشنك باتشنك لله الله insigii baad badsateen baa leeyahay wax badan oo insigii kamida bini aadamkii baad duufsateen kuwii insiga ah ee isxigeen ee wada shaqaysan jireen baa hadlayo waxay leen rabbiga now adduunka markaan joognay waan is intifaacsanay istamta'a ba'duna bi ba'din qaarkana qaarka kale ku raaxaystay
waan is-intifaacsanno insigiina wayna intifaacsadeen annagu haddaannu jinkii nahayna waannu intifaacsannay waan isku raaxaysanno waa isku dangaanno wada shaqaysannay ajashii iyo wakhtigaan noo qabatayna waa gaadhnay alla wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala annaaru mahwaakum khaalidiina fiiha hoygiinni iyo meeshaad gelaysaan waa naar halkaasaadna ku waaraysaan buu rabbi yidhi tabaaraka wa tacala dhammaantiinba insigii iyo jinnigii iskaalmaystay oo isku raaxaystay oo adduunka isku intifaacay oo isla shaqaysan jiray dhammaantiin naartaa lagu guray aayadda daahirkeedu iyaduna macnahaasuu faa'iideynaya saas daraaddeed baa wuxuu yidhi shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah ومن استمتاع الإنس بالجن استخدامهم في الأخبار بالأمور الغائبة راحيسك جنكي إنسك الأحمر آيات كهل لسوحة كمذا إن جنك الله استعماله إنسك أو استعماله وحيالها قرصون إلى أجور رمان رقم حاسوق عليه روحا عذر كيسي حنون كيسي وأرين كقرصون inaad u kaalmaysato jinka waa qaybkii inay ku waramaan ama kaaga kaalmeeyaan oo u kaalmaysatay waa umumka marka aayaday soo galaysa nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waad ogtihiinoo waqtigiisii isaga la sixray saxaabo badan baa jirana dagaaluu ku jiray oo gaalu la dagaalamayo warkooda wax u soo tabiyay u baahnaa waa laga tira badnaayo ciidamadiisa rag ku darmada waa u baahnaa jin rumeeyayna way jireen nabiga sallallahu alayhi wasallam oo mu'miniin ah muxuu u kaalmaysan waay jinku waxa suurtagal ah cadawga ku soo socda hadii uu u dirsado inuu war uga keenaan waa u baahnaa nabiga sallallahu alayhi wasallam hadana maca dalika ma sameeynin asaga jiraday oo la sixray ma sameeynin saxaabadiisii baa jiraday jin ma kaalmaysanin هدي النبي ما هم باهدنا ويتاني هدنا مع ذلك النبي ما صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وحو النبي وقتجي أيام ماشى كتشرة قلبك حجاي وحوي مدة ويمدوا تلوام الشيخ الإسلام ابن تيمية وحو ليه النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخدم الجن أصلا لكن دعاهم إلى الإيمان بالله وقرأ عليهم القرآن وبلغهم الرسالة وبايعهم كما فعل بالإنس ولي النبي صلى الله عليه وسلم شن ما استعماله بونه من أديك سنين لكن وحو أقول يا ري إن إله الرميان قرآنك كدو الأخريي رسالة دي فرينت الله قارسيي باعوا لك علي سيد إنسي قبوا لك علي إن خيرك وناك قاتان لكن مرنا النبي ما أديك سنين بوله هاي شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله سلف رضوان الله عليهم ساسا هايان وصحابة دي النبي هي التابعين تي لقمها يباهي كاستهديت شرتي أيقو شن استعمالين لما هيو بل الإمام أحمد عليه رحمة الله بالا ويديي ننشن أو استعمالية ضدك حنون صنية أما الصوحية أما ضدك اللغوط فهيو ننشن أو استعمالية سيئو وغا كالميو ضدك داوين تودا شنكو الله الليا يقولون وين الله الليا واستعمالية إمام أحمد بالا ويديي وحول الإمام أحمد عليه رحمة الله ما أحب لأحد أن يفعله ما تشعلي بودارنتا إن عيدنا السميسو وتركه أحب إلي إن ليسكد أيانا تشعلها يقول أرنتا سنين إنه سميه وحوليه وما هبونا من تشعلي بإمام أحمد عليه رحمة الله أي مدي سلف كمرك اللقمة هيو سيداس درادد أرنتا سي وبدعة محدثة وحين كيني كرتا مفاسد فربضا أو أي كم التهي سؤال بو سويدي الشيخ الألباني عليه رحمة الله مركم مسألة كهله وحيل وحيليه إن كان استعماله إنه مسلم صالحة يا أشياء يقولي وسؤال شيء نفر مريم عالم كان هو غيبي وركضنا لمر ما يسنكره نين كان صاحب كان نوحي ليه أنا مسلم شن أبا إلى الصعدان كل شقي استعمل وذا شقي سنة ورياه كل شيء إنه مسلم يهاي شن كوا بيناله وبدنيه سيدكو أوقاتي بني آدم كي الله نوليني أركيني بمرر فربضان بين نوع عبية صوما ونقلق ميرسناهي مid qarsoon oodan arkaynin ba warku ku sheegtay inaad iska qaadato oo inuu gaal yahay oo uu ku sheegto inuu muslim yahay soo suurtagal ma maxaa cadaynay marka inuu muslim saalix yahay waa mid labaad adiga iyo maxaa la idinku kala garanaya kaahinka falfalowga ee jimanka la shaqaystay caabuda iyo adigu maxaad kala duwantiin labadiinuba jin baad isticmaashaan bal umada u kala baxa
wadaadkaagana waxaad leedahay jin baan isticmaalaa kaa kalena jin buu isticmaalaa laydinma kala saari karo halkaa waxaa ka imaanaya in la tabriiriyo shirkiyaadkii iyo gaalnimadii iyo jinka la shaqaysigiisa iyo ummadda fasaad in loo horseedo ayaa ka dhalanaya waxaan ku gabagabeynayaa masaladu baxdi intaa ka dheer bay u baahan tahay waana fitanka maanta taagan bay ka mid tahay shaki ma laha bay culimmadu leeyihiin haddaad aragto ruux jin isticmaalaya isagana waa la isticmaalaya ibnu taymiya caleyh raxmatullah wuxuu leeyahy laysa axadun min annaasi tutiicuhu ljinnu taacatan mutlaqa ma jiro hal ruuxoo aadamaha ka mida oo jinku ay si rasmiya uga amar qaadanayaan oo u ateecayaan ma jiro kamaa kaanat tutiicu sulaymaana bitaskhiirin min allahi wa amrin minhu min hayri mucaawada marka ay kuu shaqaynayaan waa inay iyaguna wax kaa helaan adeer bilaash ma jiro waxbaa la isdhaafsanaya kan uu u shaqaynayo dembi unbuu geliyey kuwan ku shaqayso ma arag qaar buu kaadida cabsiiyaa qaar buu sanam u sujuudiyaa qaar buu salaadaha ka tagsiiyaa markay gaalnimo iyo kufri iyo macaasi uu ku rido oo dantiisa uu ka helo markaasuu u adeegaa wadaadkeennan marka meeshuu u furantahay waxbaan daaweynayaa leh jinku adeer bilaash kuma shaqeeya maxaa idin dhex maray maxaad siisaa soo su-aal isweydiin lamaa mas'aladaasi waa fitno wadaaddo fara badan ay ku dhaceen hungurino geliyey hadal shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah uu leeyahay oo uu leeyahay mubaaxaadka waa loo kaalmaysan karaa maqsuudka uu ka leeyahayna laysku khilaafsan yahay halkaasay shubha kala baxeen ooy wax ka raadiyeen xataa hadduu sugnaado sariixna yahay hadalka ibnu taymiya waa nin culimo ah qowluhu yusiib wayukhti waa gafaa waana saxaa macsuumna ma ah adilada iyo salafka iyo nebiga iyo dhaqanka iyo qur-aanka halkaasaa la mari laakiin ibnu taymiya ibnu qayim iyo sheekh hebel baa yidhi adeer warkaasi socon maayo markuu daliilka khilaafo saas daraaddeed fitnadaasi ha layska daayo wayba ka darto hadda waxaa laygu yidhi qolo maraykanka iyo meelaha ka yimid baa jiro hadda waxayba sameeyaan baa layidhi markay ruuxa jinka ka saarayaan mid kale intay adeegsadaan oo uu jinkii kan ku jiray soo saaro buu mid kale gelinahaya oo meesha fadhiya kaa kaley ka saaraya wayba caddaynaya waxay leeyihiin jinku meeshuu bartay iyo godkiisii intuu ku jiro ma saari karne intaan ka soo saarno baan ku kaloo meesha fadhiyaan dhahayna adaan ku gelinaynaa aabbihii iyo hooyadii iyo saaxiibkii oo la socda bay ku leeyihiin jinka waa soo saarayna laakiin adaan ku gelinaynaa war aniga haddaad gelisaan baalayaad waxaad igu soo marka kadib baan saaraynaa bay leeyihin marka baashu meeshay marayso ma sahlan wallahu aclam جزاك الله خيرا خير الجزاء سؤاشينا شنبق لحدني كو وحوليه سائلكن شيخ السلام عليكم الله كحفديو waxaan dhageystay adoo ka hadlaya yaajuuj iyo maajuuj waxaad sheegtay inay aadami yihiin gaalana ah lana arag waqtigii dulqarnayn kadib hadaba su'aashu waxay tahay yaa u digay iyaga yaajuuj iyo maajuuj loo diray rasuul iyaga u digay iyaga sideese lagu cadaabaya qolo aan loo digin horta in loo diray cid u digta cumuumka qur-aanka ilaahay wuxuu yidhi ma jirto ummad ilaa waxaan u dirnay cid u digta in cid u digta horay loogu diray way dhici kartaa nebi maxamed hortii salawaatu rabbi wasalaamu caleyh haddaan loo digin markii nebi maxamed la soo saaray sal alla alay wasalam kadib waxay ka mid yihiin ummadda nebi maxamed sal alla alay wasalam oo ummatu dacwa ah ummadda nebiga loo xil saaray inuu diinta gaadhsiiyo bay ka mid yihiin haddii cid wax gaadhsiisay la helay way ku filan tahay oo intaasaa xujo ugu filan oo inay diideen baa keenaysa in la cadaabo ilan yaajuuji wamaajuuj waa dadka naarta geli doonee u badan oo xadiiska nebiga ku sugan tahay sal alla alay wasalam markuu nebigu sheegay sal alla alay wasalam in naarta ay gelayaan kunkii ruuxba 999 ay gelayaan hal ruuxuu naarta ka badbaadaya oo saxaabadu aad u naxeen oo argagaxeen oo isku naxeen ayuu nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam yaajuuj iyo wamaajuuj baa idinku hal baad ka tihiin inta kale yaajuuj iyo wamaajuuj waa marka naarta dadka gelaya u badan yihiin ayib su-aashu waxay tahay haddii marka cid loo dirayna ma ogin nas caddaynayana ma hayno wax diidayana ma jiro hadday cid ugu tagto wax u sheegto oy diideenna saasay naar ku galayaan haddaan looba tegin oo waxba la gaadhsiininna
oo ahlu fatra yihiinna cid kastoon adduunka waxba la gaadhsiinin oo saa ku dhintaa ahlu janno maaha daliilna uma hayno bal daliilku wuxuu ku tusayaa dadka saa ku dhintay in aakhiro la imtixaanayo imtixaanka aakharana ay ku kala baxayaan oo qaarna naarta galayaan qaarna ay jannada galayaan waa dadka ahlu fatrahe aan waxba gaadhin adduunka intay joogeen kitaab allana gaadhin rasuulna gaadhin marka in aakhiro la imtixaani doono ahlu fatra yihiin oo markaa naar u badan doonaanna waa suurtagal inay wax gaadheenna waa suurtagal xadiidka macnaha tilmaamaya oo dad aakhiro la imtixaanaya inay jiraanna waa xadiid sugan oo xadiidka waxaa warinaya aswad ibnu sariic saxaabi la yidhaahdo rasuulku wuxu uhi sal alla alay slam afar ruux maalinta qiyaamada xujay la imaanaya waa doodaya afartaa waxaa ka mid a nin dhagala iyo nin axmaq oo nacas oo nacasnimo iyo caqli la-aan ku dhashay iyo nin da-ah uuba duqobo wuu cantatabay diintoon soo gaadhin iyo nin dhintay isagoon waxba soo gaadhin ahlu fatra ah macnaha saddexdaaduba way doodayaan kii dhagahalaa wuxuu leeyahy rabbiyow anoo waxba maqlaynin bayba diintu ii soo gaadhay maxaa laygu haystaa axmaqii nacaska ahna wuxuu leeyahay rabbiyow islaamkii waa yimid anigoo carruurta yaryarkii saalada igu tuurahayaan bannaankaaba laygu eriyeen anaaba rafaadsanaaye maxay tahay wax la ii haysto caqliba ma lahayn kii kalena waa hadlayaa isagana wuxuu leeyahay kii fatrada ku dhintay rabbiyow wax rasuul ah oo xaggaaga ka yimid imaba soo gaadhin marka maxaad igu haysata maxaa laygu haystaa laygu cadaabaya markaasuu rabbi ballan ka qaadayaa inay ateecayaan yani haddaan rasuul idiin soo diri lahaa oo idiin imaan lahaa soomaydaan yeesheen ha waa yeeli lahayn ayib anaaba toos hadda idinla hadlaya amarkayga qaata maxaan samaynaa waay waxaa la leeyahay naarta gala ku daata dabka marka hadda meeshaasay marka ku kala baxayaan nabigu wuxu uhi sal lla alay wasalam waladii nafsii biyadihi low dakhaluuha kaanat calayhim bardan wasalaama hadday geli lahaayeen qabow iyo nabadgeliyay u noqon lahayd naarba ma aha waxaan suuro naareed bay leedahay laakiin waa lagu imtixaanaya waa adduunkii amarkii adduunka laysku imtixaanoo kale waay qaar badan marka waa soo istaagaya ma naar baan geli karnaa bay leeyihin ma dabxulca yaan isku daadin karna takliif ma laa yudaaq waay waxaan la geli karin baana lagu kalifaya kuwaa marka naar baa loo kaxaynaya kuwana way ku daadanayaanoo waxay ka dhigan tahay adduunka intay joogeen hadduu amar alle iyo rasuul soo gaadhi lahaana waa yeeli lahaayeen kuwan diidayna haddii adduunka kitaab iyo rasuul alle soo gaadhi lahaana way diidi lahaayeen saasaa loo kala saaraya marka ahlulfatra oo dhan ahlu janno maaha waa faham khalada in la yidhaahdo dadkan diintu gaadhin oo dhan jannay gelayaan qur-aanna kuma tusin sunnana kuma tusin bal sida saxdaa in la imtixaanayo waa imtixaankaasay ku kala baxayaan wallahu aclam جزاك الله خيرا سؤاشنا شنبقول لحدن لبو وحولي سائل كان السلام عليكم شيخنا waxaan ku shaqeeyaa lacag dhan 500 iyo 60 $500 taasoo ku jirta dukaan waxaa ka soo wareegatay muddadan sanad waxaan rabaa inaan zaka ka bixiyo kow imise ayaa layga rabaa inaan bixiyo labo qaab nooce ayaan u bixin karaa maraashin ahaan mise lacag ahaan jawaabtu wax weeyaan horta alaabta badeecada noocay doon ha noqoto ama dhar ha noqoto ama dhul ha noqoto ama electronic ha noqoto waxay dooni ha noqoto marba haddii shaygu iib u yaalo curuudu tijaara la yidhaahdaa waa alaabta yani tijaaradii ganacsiga marka laga zakaynayo iyada lafaheeda zaka laguma bixiya waa la qiimeeyaa qiimaha wixii ka soo baxa sicirka maalinka ay suuqa ka joogtaana lagu qiimeeyaa ninbaa maalin dhow idii sheegaya suuqyadeenna dadka badankood buu yidhi badeecada waxay ku qiimeeyaan sicirkii ay ku soo iibiyeen iyaga ku joogtay waana arrin khalad waay waxaa lagu qiimeynayo waa qiimaha suuqa marka ay ka joogteed ku gadayso ee iibinayso ayaa lagu qiimeynaya qiimeynta wixii ka soo baxa zakada laga bixinaya zakadana waxaa lagu bixinaya lacag baa lagu bixinaya ilaa waad qiimeysay markaad qiimeysay kadib lacag baa kugu soo baxday Soomaa lacagta soo baxday qiimaha badeecada ah ayaa marka la bixinaya oo laga zakaynaya wabinaan ala hada $5,600 waxa ka baxaya $140 adiga waxa way haysdhibinba totalka ku soo baxa 40 u qaybi xasiilada soo baxda rubuc ushur waa 40 adiga u qaybi waa wax cid walba garan karto Soomaa
haddaad dariiqa dheer ee fuqahadu sheegaan martana oo rubcul cushrigu waxa weeyaan inaad 10 u qaybiso wixii soo bax haddana 4 u sii qaybiso isla natiijada iimaanaysa inaad wax oo dhan oo isla socdo 40 ku dhufatood u qaybisan isla natiijada iimaanaysa taa macnaheedu waxa weey marka 5600 waxaa ka baxaya $140 lacag ahaan baadna u bixinaysaa badeecada ma bixinaysid wallahu a'lam جزاك الله خيرا سؤاشنا شنبقول لحدني لبو السلام عليكم مقعي وعبد الشكور قف با قبستي كورنتو كدبنا وادنتي وحق أهميو كلية لنا يا شركة كورنتو دا سوق جلسي قريقة أما وضدبا جلسي وصارتي أصل هورتا وحيالها جماداتك أن نولها أهين هي نولها أن عقلك لهين سيدا حولها أوكالي wixii ay baabi'iyaan ama ay dilaan dhiig male waxa ku tusaya xadiidka saxiixaynka ku yimid min xadiis abi hurayra nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam al-ajma'u jubar wal-bi'ru jubar wal-ma'dinu jubar bimaana xoolaha la dhaqda iyo xayawaanaadka aan hadlin wixii ay baabi'iyaan ama ay dilaan dhiig male wakadalika ceelka ruuxii ceel ku dhacay ceelka ninkii lahaa u qabsan maayo dhiiggiisa waxba laga soo qaadi maayo wakadalika macdinka waa meelaha laga qodo macdanta laga qodo wuu ku dhacay ama way ku duntay isagoo macdantii qoday ninna wax kuma laha sidaas daraadeed takliiftu waxay fuushaa cidda caqli leh haday wax samayso taasi waa qodob korontadan kambaniga soo galiyay hadduu isagu nidaamkii khilaafo oo korontadan ilaalinteedii ka gaabiyo oo meelay ahayd in la xidho uusan xidhin ama tacaddi xadgudub xaggiisa ka yimid uu khaladku ku dhaco kambaniga waa lagu leeyahay dhiigga waa lagu leeyahay laakiin isagoon kambanigu khalad gelin sidii caadigii curfiga ahayd u dadaalay korontada sideedii rasmigeed u xidhay ixtiyaadaad iyo dadaal wixii loo baahnaa isagoo sameeyay hadday musiibo ilaahay ruuxan ku timaado korontadu disho marka cidna kuma laha dhiiggiisu waa wax ka soo qaad male wallahu a'lam جزاك الله خيرا سؤاشنا شنبقول لحدني سدح وحلي سائل كان سلام كدب شيخ محمد عبد أمر الإلهي درتيس أيان كوش على هاي وحبدنا دروس هذا أيان دقيستي عقيدة فقه iyo تفسير با إلهي كأبا المريو وحن قبل لبس سؤالات سؤال شوقه الرئيسة قفك شيخ عجلدهيسا دروسيات دقيستا إساقون شيخ أركين موران كرا وشيخ يجمع دام وحكبرتي سؤال شلبات شيخنا وحن شوقا مريكنكا وحن لاهي حاس يعرونا وانو شوكتا حدنا نفتي ذا وحن وقبقيا فاحشو حاس لبادنا وكسور جدا إسلانتي إلى تلي شيخ جزاك الله خيرا مسألة هوري waagii hore turuqda cilmiga lagu qaato oo culimada looga qaato waxay ahaan jirtay turuq dhowr ah in si toosa ruuxu sheekha u hor fadhiisto darsigana ka dhageysto in uu sheekhu ijaazo siiyo oo kutubtiisa u ijaazeeyay riwaayaadkiisa oo yiraahdo waa ku fasaxay wixii kutubeen qoray iyo wixii axaadiisa warinaya cilmiga yaani si fiidi waa ku fasaxay إجازة لنا مناولة جرت وحكمل الطرق ذا علمي اللي قادن شري واجه روح يد وجادة ده واحد اللي هذا إن هذا شو كتاب وليه هي نن علماء معروف خط كيسي وفرتيسي ولا يقاننا أيكو قرنتا كتاب كي بعد مالك هالشيء علمي كوي اللي بعد برتي أحاديث كوتا اللي بعد قادتي ننكاس الشيخ مكويه سجى ماذا أركن من هذا لكم من كتاب كيسي وخط كيسي وفرتي صدرك وجاد يدهان وأنا قابك علمي قال له كلا قادن شري علمي قال له جورين شري بكمت هذا بقى علمي قال هذا عشرة ده لجو قادني أما السيدية ده لجو قادني أما لجا قادني ميديا هلجا قادني ما الشيخ بعد أركيسا وانا مقليسا أما مقل ككلية محون نقول يا حكم كيسو أرض جاسي ما تليه كرا شيخ يجيوي علماء بدنوا معاصرين وحي ليهن وجاددي بالحجبيه وجاددي معنا كتاب كيميش اللي جه اللي شريه ننكو قريه خد كيس كو قرنا أو كله كاس أو كله قاركود كردي جيان
qaarna waxay leeyihiin maya tana ka xoog badan wijaadadii maxaa yeelay tan waa sheekii sawdkiisii iyo isagii oo arkaysa waa saas macna marka way ka xoog badan too waa daraja wasata bay leeyihiin simaac mubaashira iyo waasito iyo wijaada marka waasitadaasay iyo egtahay bay leeyihiin almuhim haddii xataa aad tiraahdo waa sheekhaygii si aan dadka waxoogaa aadan talbiis ugu ridin haddii loo baahdo waa inaad caddayso tiraahdo cajiladaan wax kaga qaatay laakiin laa maanica inaad u nisba sheegasto oo tiraahdo culimadaydu ka mid yahay wallahu aclam su-aasha labaad oo ku saabsan ninka islaantiina ku fillaan weyda mid labaadna u baahan zinana isaga baqaya iyadiina ayna guur labaad la rabin waxaan dhihi lahaa horta guurka labaad shareecadaa bannaysay waxayna ku bannaysay bisharti alcadli inuu ruuxu cadaalad samayn karo haddiiba laga helo awooddeediina uu leeyahay guurka labaad qur-aanka ayaa tilmaamay khaasatan markuu ruuxu uu zine isaga baqo sida su-aasha ku taalla markuu ruuxu zine ka baqayo guurku waajib buu ku noqonaya guurka ugu horeeyaba siduu waajib u yahay markaad awoodi karto inaad guursato haddana zine ka baqaysa labadaa marka la helo jumhuur ahlilcilmi waxay leeyihin guurku markaa inuu ruuxu guursado waa laazim waa waajib bay leeyihin markaas waana kari karaa zinena waa isaga baqaya guurkii koobaad haddaad guursatay oo uu kugu fillaan waayay ood weli taagan tahay zinaan isaga baqaya kan labaadna kii hore u qaadanayaa xukunkiisa oo haddaad kari karto zinana isaga baqayso si aadan zina ugu dhicin waa inaad guursato waa xaaladda xataa shareecadu fasaxday inuu ninku guursado addoon markuu ka ilmo dhalo ilmihii uu ka dhalaya addoommo noqonayaan dalika liman khashiya alcanata minkum addoommada guursigooda ilaan markaad addoonta aada guursato addoonta ninbaa iskaloo sayid ay u tahay iyo sayid u ah soo maa addoonta markaad guursato ilmahaad ka dhasho adoo xor ah ilmuhu hooyadii buu raacayaa addoon buu noqonayaa marka xataa ilmahaagu inay addoommo noqdaan nin kale leeyahay oo sidaa shahwadaada zine kaga ilaaliso ayaa dhaanta inaad zine ku dhacdo dalika liman khashiya alcanata minkum wa an tasbiruu khayrun lakum baa leeyahay marka ninkaa waxaan dhihi lahaa iska guurso dumar ogolaada ma jiraan hadduu ka sugayo islaantu inay u ogolaato guurso wuxuu u baahan yahay in loo sheego dumar ogolaada ma jiro raggooda u ogolaado guurso sababtuna waxa weeye waa waxa ilaahay ku abuuray oo hayrada ah waa sayrkaa ilaahay ku abuuray ayaa diidaya inay ragga u idmaan guurso marka ha ka sugin gabadha guursee ayadana dhaq ta labaadna guurso labada reerna isla dhaq shahwadaadana ilaasho zine iyo xumaan iska ilaali wallahu aclam جزاك الله خيرا سؤاشينا شنبقل لحدني أفر السلام عليكم مقعيقو عبد الفتاح شيخ حلي صلاة لتشوغو هدان ويسيستو كدب صلاة حلي قال لتشوغو أن كنتو كذو ويسداس صلاة كلمة كنتو كنكرا ويسداس هدي أنا أني يسن markii aad weysiisanaysid haddaad niyeysatay weysadu kuu asaxday ood weyse qabto inta aynan kaa jabin intaad doonto salaadaad ku tukan karta shardi ma aha markii horead weysiisanaysay inaad u niyeysato salaadan hadda soo socotaan ku tukani allow ta soo socotana waan ku tukan allow ta afraadna waan ku tukani allow warkaas war jira maaha soo ma cibaadada markaad gelayso weysada markaad weysaysanaysaa lagaa rabaa niyo iyo bismillaahi inaad dhahdo haddayba weysadii sidaa ku asaxdo intii la doono salaada baad ku tukan kartaa ama waajib ha noqdeen ama salaada sunnah ha noqdeen haddayna jabin intaysan jabin waay allahumma dad waxaa jira iyagoo ay fuqahadu u badan yihiin xilli walba inay weysaystaan oo salaad kastoo waajiba inay u weyse qaataan laga rabo iyaga oo waxaa ka mid a dadka acdaarta daa'imka iskale daa'imul xadadka iyo ruuxa maalan neeftu ka socoto gadaal mar walba ruuxa maalan kaadidu mar walba ka socoto wax weysadii jabiya mar walba jidhkiisa ku yaalla uusan mustaxaadadoo kale dhiig furanka haweenta dhiig furanta qabta yacni fuqahadu waxay u badan yihiin iyagu salaad kasta waa u weysaysanaya tan hadday u weysaystaan toddobana waa inay u weysaystaan leanna shaygii weysada jebinayaa mar walba ku yaal
isagoo ku yaala inay salaadan ku tukadaanna xal kalaan la haynin oo cudurdaar bay leeyihiin marka qolyahaas mooyaane laakiin dadka kale hal mar hadday weyse qaysta qaataan salaadaha intii la doono salaaday ku tukan karaan wallahu a'lam جزاك الله خيرا سؤاشنا شن بقول لحدني شن السلام عليكم شيخ إلهي عمري أجاها بركايو مركان جورسناي أيا واحد عذي مركي قولها لفرية إلا ويدي قبل مهر كذا مسوها فرينا وجماعة وضحلين ويكدس بونجوها عني يحاسبه مركا شيخ وحلا يدهي أو مركا واحدنا تلفون كذا مركا وعي إن مركا سان إسكشجع قيمون xaaskayguna ilaa hadda ima weydiin meherkeeda wuxuu iyo intuu ahaaba sheekh bal ka waran haddii aan dhaho meherkaagii waxaan ka dhigay intaa ma ku qanacsan tahay ay iga yeesho soo caadi maaha waa nin gabadh gob ah qabo ilaa haddaba haddayna weydiiniba meherkaygu meeqo wey waa nin gabadh gob ah qabo almuhim meherka in lagu magacaabo meesha labada ruux la isugu meherinayo halka in gabadha meherkeeda lagu sheego laazim ah meherka waa laga aamusi karaa labada ruux iyagoo wax meherba la sheegin baa la isu meherin karaa quraanka kariimka ilaahay ku tilmaamay inay xaaladaasi jirto oo aayada fi suurati al-baqara ku jirta la junaha alaykum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah dambi iyo ismi idinka soo gaari maayo haddaad dumarka furtaan intaydan u galmoonin ama aydan wax mehera u qadarin gabadhii waa la guuriyey meherna looma sheegin intaan loo galmoonina waa la furay dambi idinka soo gaari maayo baa leeyahay marka meherka in meesha lagu magacaabo laazim ah waa laga aamusi karaa haddii laga aamuso labadii ruux saa la isugu guuriyo meherkiisee la yeelayaa laabudda meher inuu jiro waa laga maarmaane meherkii waxa la yeelayaa waa la qadarayaa hadhow ayaa la qadarayaa hadday iyagu ay mid raalli isaga noqdaan oo dib dambe intay ka heshiyaan wuxuun ay isla gartaan wixii ay raalli isaga noqdaan baa meherka gabadha gadaal xataa ka yimaado haddii ay isqabsadaan oo isaguna yidhaahdo maya iyaduna ay tiraahdo maya oo iyaduna wax badan sheegato isaguna oo nin gacan adag noqdo ku diido muran hadduu markaa yimaado waxaa loo noqonayaa qaacidada la yidhaahdo ujratul mithli waxaan u jeedaa mahrul mithli baa noo noqono meesha iyada ah gabdhaha iyada la midka ah maxaa lagu meherin jiray baa la fiirinaya halkaasaa loo noqonaya halkaasaa marka gabadha meherkeedii qiyaastiisa laga soo saaraya aan meesha lagu magacaabin sidaas daraaddeed ninkan gabadha isagu meherka u magacaabay ilaa iyo haddana aan u sheegin waa inuu u sheego hadday raalli ku noqoto alxamdulilah hadday diiddo waa inay dib uga wada hadlaan oo ay ka heshiiyaan hadday ka heshiin waayaan waxaa loo noqonayaa marka gabadha markii la guurinayay meeshii lagu guurinayay maxaa gabdhaha iyadoo kale meher looga dhigi jiray halkaasaa marka laga goynayaa murankoodii iyo doodoodana lagu kala saaraya wallahu aclam جزاك الله خيرا سؤاشنا شن بقول لحدني لح السلام عليكم هدي أن قال ذا حنتو مدن ببشيقه مسألة وخلافية وهي قالوا ذو هبك السكيان متك حربي دجالك كل شراء شيء سوسن كذا حينين يعهد يبلن يوضع نوران شو هي متك أنت سكالة حيسو ويكلا قادم فقهاء قاركوت المهم ظاهر كقرآن كي أحاديث تمرك الله فيريو وحكم مقضى حنتو وحي حاران تهي مركا عدة عد حمانيسا أيتها الروح مسلم آيات القرآن كي حنت كهذا شيء مركا فيريسو الله حليه تبارك وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه هوستك حريق ولالكي هلبكي سئنو عنو walaalkaagani waa walaalkaaga xagga diinta waa muslimka xadiidkii nabiga xoojinaya sallallahu alayhi wasallam fi sahih muslim xadiis abu hurayra nabiga sallallahu alayhi wasallam atadruna mal ghiba xan waxay tahay ma taqaana oo yiraahdeen rasuulkii allah iyo rasuulkiisa yaqaan markaas nabiga wuxuu sallallahu alayhi wasallam dhikruka akhaka bima yakrah
xan waxa la yiraahdaa walaalka inaad ku sheegto wax uu ka hanayo walaalka yaa waaye waa muslimka طيب nusuustaasi waxay ku tusaysaa inay qiibadu xaaraantii ay tahay xamashada iyo wax ka sheeka ruuxa muslimka طيب culimadu waxay yiraahdaan waxa la mid ah qaar kamida waxa la mid ah bay leeyihiin muslimka gaalka aan markaa dagaalka la dhaxaynin oo nabad ku wada nooshiin ama ballan iyo ahdi idinka dhaxeeyo sababtu wax weeyaan ka sida dhiigiisu xaaraanta u yahay xoolihiisuna xaaraanta u yihiin ba cirdigiisuna xaaraan u yahay ama gaalka xarbiga ee dagaalka markaa kugula jireen waxba ballana idinka dhaxaynin ee dagaalsantihiin ka isaga maadaama dhiigiisii iyo xoolihiisii iyo banaanaadeen deexantiisa waaba ka sii xog jirta Soomaa xantiisa waa ka sii xog jirta laakiin laba gooraba waqulu linnaasi husna weeyo xanta macna la'aanta waa waqti lumis hadaad maanta dhan gaal aad xarbi baha ahaade maanta aad sheegtood xamato maxaad soo kordhisay yani wax badan ma kordhinin nooc waqti lumis waa dhanka marka laga fiiriyay culimadu leeyihiin al-awla in la iska badaayo faraha laga qaado laakiin asalahan wax diidaya ma uu jiro wallahu a'lam جزاك الله خيرا سؤالنا 567 wuxuu leeyahay saailkan gabadhani waxay leedahay assalaamu calaykum waxaan Yurub ku imid lacag deyn ah waxaan damcay inaan guursado waalidkay waxay shardi iga dhigeen guurkayga inaan kolka hore bixiyo lacagtii deynta ahayd deyntana hadda ma bixin karo ilaa aan ka guursado kadibna caruur dhalo waxa caruurta la igu siiyo baan deynta ku bixin karaa sheekhow ma guursan karaa wali la'aan Allahu musta'an ma habboona waalidku inuu gabadhiisa oo guur gaadhay oo bilaad ama dhulka qurbaha joogta oo ogtiin fidnada ka jirta dadkii waaweynaa ee reeraha lahaa badbaadila oo khatar ku jira gabadh dhalinyaro oo reer lahayn ninka intuu badweynta ku dhex tuuro mawjadaha ku dhex tuuray hadana ha guursadnin ilaa adeynta iska bixiso waalid aqligiisu dhiman yahay safaha ku jirta aqli yari iyo diin yari baa ku jirta haddii uu ogsoon yahay khatarta iyo dhibka meesha ka jirta gabadhiisa cirdigeeda iyo sharafkeeda halastu ku jiro wax walba wuxuu ka hormarin lahaa guurso laakiin ama doqon darahaysa ama safahi aqli darahaysa arintaasi arin saxsan maaha gabadhaasi haday ku adkaato inay is ilaaliso wayba adag tahay ruux meesha jooga inuu is ilaaliye ha guursato haday iyagu diidaan inay guuriyaanna qaadi sharci ha raadiso oo meheriya haday qaadi sharci weydana magaalada ay joogto muslimiinta ninka imaamka u ah iyo maraakista muslimiinta mashdasha iyo jamciyaadka matasha iyo madaxdooda meesha joogta ayaa wilaayadeeda qaadayo iyaga meherinay laana waalid ilmihiisi inuu xumaan ku dhaco ay taladiisu noqotay iyo tala xumadiisu ay noqotay la dhihi maayo ha loo daayo ilmuhuna ha fitnooba la dhihi maayo wilaayada xoog looga qaadan waana la meherin waa xaalaadka macnaha cadliga kale saas daraadeed ha guursato waxa ka maqan waalidkaasoo aqoon darrada haysa kamida ruuxu markuu guursado rag ha ahaado dumar ha ahaadee markaasaaba ilaahay uu kaalmeeyaaba gabadhan iyadu wayba soo bannaankayba soo dhigto waxay tidhi caruurta waxaan ku qaadanayaabaan deyntii ku bixinay keligay haddaan shaqeeyo ordayna deyntii waan bixin laah war waalidkanow haddiiba deyntii lagaa bixinayo meel fududba gabadhu ka keentayba maxaad u diidi waaba la yaabay sooma hadday iyadiina islaaliso guursato deyntiina sidan baa ay ku baxaysaba adeer maxaad u hortaagantahay waa arin khalad ah saas daraadeed gabadhu ha guursato xadiidka nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay thalathun haqqun ala allahi awnuhum saddex ilaahay baa isa saaray oo xaq isaga dhigay inuu kaalmeeyo saddexda waxa kamida waa naakih alladhi yuriidu al-afaaf ruux guursanaya
guurkana ku raadinaya inuu is ilaaliyo oo zina iyo xumaan iska ilaaliyo sidaa ruuxa ku guursanaya ilaahay baa ballan qaaday inuu kaalmaynayo marka gabadhaasi bilaaday joogto iyo meeshay joogtana waa meel aan garanayne ha guursato waalidku hadday u diidaanna meesha dadka jooga iyo culimada joogta iyo mas'uuliyiinta muslimiinta ee meesha jooga wilaayadeeda iyaga la wareegay iyagana guurinaya sultaanu waliyun man laa waliya lahu wallahu a'lam جزاك الله خيرا سؤاشينا شن بقول لحدن يسديد وحولي سائل كان مقعي عبد الناصر محمود دقان سويدن أرضي برت الشريعة الإسلام كا وحن كويدي الشيخ سؤاشن كل أريجان اللمس وحاتكو فسرتي إنه يهي جماعة حدو يهي جماعة قرآن كميل بدن وحنكو أركسيدا سورة الأنفال لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم سورة مريم قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسني بشر سورة الأنبياء نبي الله أيوب مركي لغا شيكيناي بريديسي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين شيخ إيفا إيدي الله كوفا إيدي إريادا كسو أرور آيادا هس آيادا أو لامستم النساء وقرآن كلام يلوت كغتمت وحلقها اللي waxyaalaha qabayska waajibiya ama weysada waajibiya baa laga hadlayay markaas waxa lagu daray markaad safar tihiin oo socoto tihiin oo biyana weydaan markaana aad ka timaadaan xaaje aad gudateen oo ama kaadii ama soo saxaro soo gudataan oo soo xaaje gudataan ama dumarkaba aad taabataan biyana marka aad weydaan gabagabaystaa leeyahay marka laamastumun nisaa dumarka aad istaabataan istaabashadaasu saa'ilka ayuu su'aal ka qabaayo baaqaan tafsiirkii duubnaabu dhageystaan u malaynaya wuxuu leeyahay waxaad ku fasirtay galmaad ku fasirtay ee taabashadii gacanta kumaadan fasirin aayada kale quraanka kamidana waxaan haynaa iyagoo lamsiga iyo masiga uu isticmaalay taabashada aan galma ahayn aduna waxaad ku fasirtay galmaad ku fasirtay su'aashu ishkaalku kaas weeye markaynu cadeynana wax weeyaan aayada aw lamastumun nisaa lamsiga inuu taabashada gacantiyo jirko isgaaray iyo inay galma tahay labada macno midka laga wado mid walba waxa ku fasiray saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam مثلا قلما waxa ku fasiray Abdullah ibn Abbas oo wuxuu leeyahay Allah tabaaraka wa ta'ala waxaan uga baranay waxyaalaha magacyada xunxunka ah waxoogaa laga xishoodo alla waa xishood badan yahay waana deeq badan yahay magacyadaasi waa ka wareegayo afka laguma ballaariyo bimaana wax weeyaan ayaga lama qeexay waa laga wareegaa sidaas daraadeed awla mastum taabasha laga cabiray buu yiri galmaana laga wadaa sidaasi ka gadisan waxa ku fasiray Abdullah ibn Mas'ud oo isagu wuxuu ku fasiray ama Abdullah ibn Abbas wuxuu waxa laga wadaa muxuu ahaaye galma laga wadaa ibn Mas'udna wuxuu waxa laga wadaa maya ibn Mas'ud ibn Umar iyo waxay leeyihiin waxa laga wadaa taabashada gacanta sidaana waxa maray Imam Shafi'i alayhi rahmatullah kelimada lamsiga labadaba arabi ahaan waa loo isticmaalaa taabashada gacantana waa loo isticmaalaa markay dumar la socotana galmana waa loo isticmaalaa oo nooc kinaayo way markaas markay dumar la socoto aw lamastumun nisaa dumar oo kale la raaciyo waxa macnaha xoojinaya aayada labaad ee uu keenay qisadii Maryam قالت ربي أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية ربي يو سيبان المكوه ليا أيضا أوسم بني آدم إتابن ما قالت زانية زيني ستنا آنا نهين مركم حال لقا وضا ولم يمسسني بشر ما قال ما لقا وضا مش تابش إن قال ما لقا وضا محاكو تسيه
laanna waladku kuma yimaado taataabasho jidhka kuma yimaado soomaa seen ilma ku helaya ayadoo uusan bini aadan itaabanin waxay ka wadaa ii galmoonin laanna waladku saasuu ku yimaada soomaa xalaalna uusan igu taabanin xaaraamna uusan igu galmoonin xalaalna uusan igu galmoonin sidaas daraadeen aayadani waxay xoojinaysaa tafsiirka ku fasiraya aayadda hore laamastum galmada ku fasiraya bay tani xoojinaysaa soomada garan sidaas daraaddeed waa madhab jira su-aashu waxay tahay annaga maxaan u rajaxnay madhabka galmada ah maxaan u rajaxnay ee cabdullahi ibn cabbaas uu maray waxaan u rajaxnay laba qariino qariinada koobaad ee aayadday ku dhex jirtaa qariinada labaadna waa daliil aayadda ka baxsan qariinada koobaad waxa weeye haddii aayadda lagu fasiro taabashada gacanta sida ibn mascuud iyo shaaficiya ay mareen waxaa ka fiican in lagu fasiro galmada lagu fasiro waxay nooga fiican tahay aayaddu waxay ka hadlaysay gabagabaysiga iyo tayamumka laba goor haddii lagu fasiro galmo waxay faa'iideynaysaa haddii aad xadadka weyn ee galmada aad gashaan iyo kii waysada waajibinayay haddaad gashaan biyana aad weydaan gabagabaysta halkaa waxaa ka soo baxaya aayaddu inay caddaysay haddii ruuxu janaaboodo ama caado gabadho ay ka qabaysanayso biyana ay weydo inay gabagabaysanayso aayaddaa sheegtoo laamastum galmaa lagu fasiri markaas haddii aynu taabashada gacanta ku fasirno waxaa soo hadhaya aayadda labadeeda qayboodba laamastum nnisaa iyo ta kaleba waxay fasirayaan jaa axadu minkum min alghaa'id aw laamastum nnisaa labaduba waxay isugu imaanayaan wixii waysada jebinaya soo ma wixii gacanta taabashadeeda iyo markii aad soo xaaja gudato labadooduba hal qodob bay isugu imaanayaanoo xadadkii yaraabay isugu imaanayaan marka aayaddu waxay noqonaysaa xadadka yar haddaad gashaan biyana weydaan gabagabaysta oo xadadkii weynaana aayaddu ma tilmaamin markaas soo ma daliil kaleoo bannaanka oo axaadiis baa la raadin laakiin aayadda laga heli maayo haddaasan laakiin galmo ku fasirno labadii xadadba markii biyo la waayo in laga gabagabaysan karay aayaddu faa'iideynaysa xadadka weyn waxaa tilmaamaya aw laamastum oo galmadii ah xadadkii yaraana maxaa tilmaamaya aw jaa axadu minkum min alghaa'iti oo kii waysada jebinayaba labadaba aayaddaa laga faa'iidaystay xadadka weyn iyo ka yarba haddii biyo la waayo in la gabagabaysanayo saas daraaddeed aayadda macnaheedu saasuu ku fiican yaho xugum ziyaadaa bay markaa wadataa maad fahanteen ayib taa waan u rajaxnay qariinada waa u rajaxnay iyo macnaha zaa'idka macnaha labaad ee u rajaxnay waxa weeye axaadiista nebiga marka loo noqdo qur-aanka fasiraya waxaan ka helay taabashada caadigoo rag iyo dumarku istaabtaan waysada inayna jebinaynin axaadiista nebigaan ka helnay haddii axaadiistii nebiga saa laga helayna aayadda nebigaa fasiro waxaa lagu fasirayaa markaa inay galmo laga wado ee ayna taabashada caadiga ahayn sidaasaan marka u rajaxnay labada tafsiirka aan u rajaxnay amaa labada aayadood ee kale uu walaalkan keenay ee uu su-aasha ku keenay labadaa midna baabkan kuma wasaabsanaba midda hore lowlaa kitaabun min allahi sabaqa lamassakum haddaan ilaahay xukunkiisoo hore iyo kitaabkiisoo hore iyo qadihiisii hore hadduusan jiri lahayn waxaa idin taaban lahaa haniimadaad qaadateen sababteed cadaab weyn baa idinku taaban lahaa ayib tan inay taabasho tahay waxa taabanayana ma aha bini aadan istaabanaya ma aha waa cadaab taabanaya bini aadan taabanaya waa ayib taabashadii jidhkana ma aha galmana suurtagalba maaha soo ma lamassakum ma dhihi karna cadaab baa idin galmoonaya ma la dhihi karaa maba ixtimaali karto meesha ma soo geli kartaa iyada marka lamassakum tani laga hadlayo ee magalma mise waa taabashada waa marka dumar ay la socoto waay aw laamastumu nnisaaa walam yamsasnii basharun waa dumar iyo baa laga hadlaya amaa masigu hadduusan dumar ku imaanin macno kale way markaasi waana iska cad yahay isla aayadda kale iyaduna saasa oo nebiyullaahi ayuub calayhi salaam markii dhibku qabsaday isagana uu walaalkeen keenay iyaduna sidaas weeye oo dumar kama hadlaysee annii massaniya duru wa anta arxamu araaximiin rabbi oo dhib baa itaabtay soo ma cudur baa ku dhacay wuu jiraday calayhi salaatu wasalaam marka dhibkii buu ilaahay u sheeganayaa dhib baa itaabtay marka galmo maa lagu fasiri karaa
maba ixtimaali kartaba saas daraaddeed labada aayadood meeshaba ma soo geli karaan ama aayadda kale maryam ku saabsan waxay u shaahid tahay oo markhaati u tahay oo xoojinaysaa aayaddaa hore in galmo laga wado wallahu aclam jazaaka allahu khayran khayr aljazaa su-aasheenna 569 wuxuu leeyahay saa'ilkan assalaamu calaykum sheekhana waxaan u shaqeeyaa shirkaddaasi waxay ugu tiri haddii aad noo keentid macaamiil custom waxaan ku siinaynaa dhibco ku kordhinaya mushaharkaaga ma xalaal baa sheekh qof kasta oo aan ku soo xidhay shirkaddaasi xoolaha aan ka helayo laba suura iga muuqata suurada koobaad haddii ay tahay ruuxa shaqadiisu ay tahay inuu kambaniga ku soo xidho dad custom ah sidaana lagu siiyo mushahaar go-an ama khidmad lagu siiyo waa shaqo bannaan wey laakiin waa inuu mushahaarku cad yahay wax noqonaya haddaad saa yeeshana saasuu noqon haddana saas yeeshana wuu kordhi haddii saan u nusqaami jahaala ku jirta taa waa midda kale su-aasha iiga muuqataa waxay tahay caalamkana hadda ka jirta hadda ka horna aan muxaadaro kaga hadlay taqriiban muddo aan malaynayo aada u horreysay dadka intii garanaysaa xasuusata sharikado waxaa la jirta la yidhahda asharikaat alharamiya oo waxbay soo bandhigaan kadibna dadkii bay leeyihiin customkeen badeecadanadii iibsada daawooyin dahab badeeco kale marmarka qaarkood waraaq la buuxbuuxinayo oo inta lacag la bixiyo kadibna aad member noqonayso xubin ka noqonayso kadibna dadkaad keento aad ku dallacayso ta noocaasoo kale ah oo dadkaad keento ay dhibca kuu kordhinayaan kadibna aad dallacayso waxna yaryarna ku siinayaan marka u dambaysana abaalgud weyn ku siinayaan markaad darajo mucayana gaadho dadka aad keentana ay ku kobcinayaan iyo dhibcahoodu midaasi waxa la yiraahdaa sharikaad haramiya la yiraahdaa caalamkeena caan ka yihiin waana xaraam qaabkay u dhaqmaan lianna jahaalo iyo gharar iyo khamaar iyo aklu amwaali naasi bil baatil intaasoo sabab oo faasida ku jira horay baan hadda kol muxaadaro uga hadlay culimadu say uga hadleen iyo wixii laga yiri iyo haday marka nooca tahay sharikaadka nooca u shaqeeya noocay dooni badeecaday soo bandhigayaan ha noqoto tacaamulkooda iyo la shaqeyntoodu ma banaana wallahu a'lam جزاك الله خيرا سؤاشنا شنبقل يتضباطا السلام عليكم شيخ بيها كهرية المضى صلاة ما كنت كنكرا بيها المضى كهرية أو أنت هذا قلمونين با حبين كمركو المضى مسك المضى المضى ها بيها المضى كهرية ويسيدي تشبينيا وانا نجاسو بمعنى وحويان وصائل كصوب حي حبين كترنك ما دام وسيدا يهي وانا نجاسو ويسدينا واجبينيا لكن قبيس ما واجبينيا قبيس كوح واجبيا مركو المه صوبحو ديغي دلمدنا يمادو مركاسا اين هوينتو تكن كرينين او حرمدي اي ايمانيسا الى اي كقبيستو لكن دعان كان كهوريا انتينان دالين oo xubinka ka soo baxayay dhacaamadaasi waa u nijaaso waysadana way jabinayaan laakiin haweentii hadii ay ka go'i weydo waqtiguna joogo isagoo socday ku tukanay laana markaa waa daa'imul hadath waa wax waysadii jabinaya oo socdo la kari waayay sideeday ku tukanaysa wallahu a'lam way waysaysan saasayna ku tukanaysa جزاك الله خيرا سؤاشنا شنبقل تضباطن يكو وسؤاش أقدم بيسا فدقنا نعاوة وحليه هاي سائل كان السلام عليكم مقعي وعمر عبد السلام شيخ هدي أن قبر سو قرسدو غير كودونا يقو قوريان إني بكرتها هاي يدو نصاص يقو شيكتي شروط يانو نسيدا هايد كدب نهبينك أقل قلق يقو هذه بكرميه انتان واحد جماعة سامين مهر ما يقو يلانيسا أما aan ogaaday xilliga gogosha inaysan bikra ahayn wax meher ah miyay igu leedahay labadaas yaabood hadii labada ruux ay iskuursanaya midkood uu shardi dhigto oo shardi la isku guursado shardigaasina uu noqdo sifa maqsuuda sifa aadamuhu uu isaga qasto oo daneeyo hadduu shardiyeysto
shardigii uu shardiyaystayna waxaan ahayn meesha ka soo baxo xaq wuxuu u leeyahay caqdigaas iyo guurka dhacay inuu fasaqo oo ka baxo مثلا waxay yiraahdaan maal oo kale gabadhani ninkani wuxuu ugu sheekeeyay nin hantile baan ahay oo taajir ah sarahan aad arkaysa isli ku yaalaanay ii shaqeeyaan buu ku waa miskiin sidii bay ku guursatay markuu meherkii dhacay kadib baa waxa soo baxday wuxuu isku furtay ma hayaba way isfasaqi xaq way u leedahay way ka bixi wakadalika jamaalka quruxdoo kale waa la mid waxa la mid ah bakaarada inuu shardi ka dhigto ninkani inay bikra tahay shardigaana uu ku guursado hadhowna ay soo baxdo inaynan bikra ahayn xaq wuxuu u leeyahay inuu caqdigii jabiyo uu ka bixi uu furi inuu iska haystana waa heli karaa laakiin muxuu xaq u leeyahay hadii la yiraahdo xaq wuxuu leeyahay inuu caqdiga jabiyo oo fasakho ayuu xaq u leeyahay meherkii ka waran su'aashu meherkii ku saabsanta haddii intuusan u galmoonin ay arintu soo baxdo oo uu sidaa ku fasaxo waxba ma ay laha طيب hadday tahay markuu u galmooday kadib meherku markaa waa waajibaya laana meherku muxuu ku waajibaa galmada haddii horey loo magacaabay oo meher magacaaban uu ahaana nisba waajiba adiga waxa way hadday galmada kadib ahayd meherkii waa waajibayaa laakiin yaa laga qaadayaa waa hadday farsamada iyo khiyaanada iyo sirta ninka lagu sameeyay iyadu samaysay ama ay qayb ka ahayd wax mehera ma ay laha haddayna iyadu qayb ka ahayn ninka iyo gabadha weligeedii baa wada hadlay isaga ku yiri gabadhaydu waa bikaro waa bikro waranu gabadh bikra raba shardigaasaan ku raba ma gabadhayda ana huba iyadana miskiintana waxba lama weydiin sidaas oo kale haduu ku guursaday arintina ay soo baxday sidaas si ka gadisanna odayga meherka laga qaadi marka yaa weligeeda ila ninkana farsamada maleegay Soomaa isaga khalad ka sameeyay haday gabadhu khalad ka sameysay oo iyadu ninkan ay u been guurtay oo been u sheegtayna oo shardigiisii ay sidaasi uu ku jabayna iyada waxba lahayn wala weligeedii wax ku lahayn wala isaga wax ku malaha almuhim cidii dooni baa laga raadiyay waxay leeyihiin culimada iyo fuqahada badankood xaaladda noocaas oo kale haday dhacdo qish lagu sameeyo markaasi wax weeyaan meherkii haday qaadatayna way soo celin hadayna wali qaadanina ma ay laha ninkaasina ku filan in la khiyaamay in la burburiyay wax kale loo raacin maayo bay leeyihiin waxa uu heli karaa mid in la baraarujiyo u baahano hadii ay u sheegtay intuusan u galmoonin guriga markay isu yimaadeen bay ku tiri bikaarmay bikaarmay beet uu aamusay hawshiisu ka dhameystay hadhowna wuxuu yiri waa la khiyaamay adeer socon mayso markaa sababtu waxay tahay sababtu badeecadu markii sidii lagaaga gaday ama muaamaladu sidii lagu aad ku heshiiseen ay ka gadisantahay oo intaad ogaato aad ku sii socoto khiyaarkaagi waa lumaya marka khiyaar waxaad leedahay marka ugu horeeyad ogaato waa inaad go'aan qaadato laakiin inaad u aamusto danahaaga dhamaysato oo aad hawshaada wadato hadana tiraahdo may waa la khiyaamay taasi socon mayso hada billahi tawfiiq sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad ala alihi wa sahbihi